700 tan oo raashin oo kamida mucaawimadii dalka Turkigu ugu soo deeqay dadka danyarta ee ku nool Jamhuuriyadda Somaliland ayaa soo gaadhay magaalada Burco ee gobolka Togdheer. mucaawimadan iyo dekada Berbera ka soo qaadeen gaadiid ka badan 35 oo kuwa xamuulka ayaa soo gaareen Burco saaka waa barigii iyagoona lagu xareeyay qaybta booliska ee gobolka Togdheer oo ku yaalaan hangaro iyo baqara waaweyn. ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa sugayay ammaanka gaadiidka raashinka siday. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Baxle ayaa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland uga waramay raashinka iyo cidda loogu talagalay. waxaan diyaarinay in gaaro cidii loogu talagalay iyadoo xafiiska samafalka ee gobolka uu joogo shirkaddan soo gaarsiisay shalay aan dekada tagay warqadana ku saxay oo macnaheedu ahaa tirada raashinka oo ka kooban 700 oo tan 700 tan oo 350 ay yihiin sokor 350 ay daqiiqeen waxa loogu talagalay 14,000 oo qoys oo ku nool gobolka Togdheer oo ay ka mid tahay gobolka Daadmareed oo asal ahaan ka soo jeeda gobolka Togdheer. raashinkan waxa iska leh dadka danyarka ee darajadoodu siinay ka hooseyso iyo wixii la halma ee ugu jilicsan waana inta quraan ku sheegay. taliyaha qaybta booliska ayaa isaguna xusay in raashinkan uu tagi doono deegaamadii loogu talagalay. shanistu ka baabuur oo soo gaareen waan qabanay mas'uuliyadahan waan loo wareegnay anagu nabadgelyadii waan si fiican u sugnaa diyaarado raashinka waxaan ku talagalaynaa diyaarada meeshii loogu talagalay la gaarsiiyo. deeqdan mucaawimada ee sida rasmiga u la wareegeen maamulka gobolka Togdheer ayaa soo gaarsiiyeen urur lagu magacaabo Amal iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen saraakiil ka socotay xafiiska samafalka madaxtooyada. Cabsaaq Farax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.